Guurku lamaanaha hal qof ayuunbuu isaga dhigaa, laakiin labadooda ka uu halka qof noqonayo ayaa ah sirta aan guurka ka hor lasii ogaan karin. Guurku waxa uu ku bilowdaa bisha kalgacalka, waxaa xigta bisha hadalka, waxaa xigta bisha riyada, kadib waxaa bilowda bilaha murugada. Guusha dadka kale ma aha adiga guuldarradaada ama fashilkaaga. Marnaba ha ka xumaan qof kale guul uu gaadhay. Isdiyaarin, dadaal badan, doonis joogto ah, dulqaad iyo duco ayaa ah inta badan asbaabaha guusha lagu gaadho ama keena. Guushu waa hortaada ee kaama dambayso, sidaasoo ay tahay ha eegin gadaasha ee hore u soco. Ha dayicin fursad aad qof kugu dheer ku gaadhsiin karto hadiyad ama ugu yaraan salaan qaaliya. Ha fiirin siyaasadda duqsiga ee fiiri siyaasadda shinnida. Ha isdhiibin markaad la kulanto dhibaato ee u qaado inay tahay wax ku xoojinaya, waayo guul kasta dhibaata kaa xigta, ha yaraato ama ha badnaato. Ha ka biqin inaad isbeddel samayso. Ha ka cabsan inaad fashilanto ama dhibaatooto. Ogsoonow haddii mugdi jirin, marnaba ma aadan aragteen xiddigaha.